xogayaha arrimaha dibadda xisbiga mucaaradka wadani Marwa Faadumo Siciid Ibraahim ayaa nasiib darro soo wajahday ku tilmaantay wadahadallo la qorsheeyay in ay dhexmaraan Somaliland iyo Soomaaliya kuwaas oo la filayay inay ka dhacaan magaalada Nairobi hase yeeshee baaqday kadib markii ay dawladda Soomaaliya ganafka ku dhufatay wadahadalladan oo dadka soo qabanqaabiyo ugu fadal lacag yahay Maxamed Cabdulaahi Cumar oo mar wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland ka soo noqday ayaa waxa sheegtay in aanu rajo badan ka qabin Somaliland nasiibadii ugu weynayna waxay nagu dhacday shalay oo aynu ogeyn Maxamed Cabdulaahi Cumar wasiirkeennii hore ee arrimaha dibadda oo anigu sanad iyo bar ka hor aan shir jaraa'id ka qabtay oo nidhi Soomaaliya buu joogaa Soomaaliya hoos fadhiya farmaajo iyo khayr hoos fadhiya haddana ay dhig loo dhigi waayay isagoo waliba kulmiye maxaa haydin siyaasiyiintoodii ugu waaweynaa ee golahooda dhexana ku jira dhig alla dhig loo dhigay ma jirto sanad iyo barkaana weyn ogeyn Soomaaliya wuxuu u joogay waxa ahayd isagoo oo rajaynaya inuu arrimaha dibadda loo dhiibo tiino way ka fashilantay waana u shaqayn weyday dabeetana wuxuu qaatay inuu dilaal ka noqdo wada hadaladii Soomaaliya Somaliland Marwa Faadumo Siciid waxa ay qawaday qaabka Somaliland dabacsaneed inay ku gasho wadahadalladaasi maadaama dhinaca Somaliland uu matalayay wasiirka arrimaha dibadda halka Soomaaliyana ay soo dirtay agaasimaha madaxtooyada dawladda federaalka ee Soomaaliya marka uu wada hadallo ay laba dawladood doonayeen inay wada gasho sida protocolka lagu yaqaano waxa weeyaan inay qolada Soomaaliya iyo qolada Somaliland ay labadooda wasiir ee arrimaha dibadda ay wada hadlaan waxa lagu heshiiyaa halkeebaynu horta wada hadallada ku qabanaa waayo waa laba dawladood oo wada hadlayo waa inay horta marka hore masabka ay ku wada hadlayaan inay ku horta ku heshiiyaan talabaad waxa lagu heshiiyaa yaa inooga qayb galaya ma madaxweynihiina ka qayb galaya madaxweynahayaga ma wasiirkayaga iyo wasiirkiina ma agaasimihiina iyo agaasimahayaga ma waaxeedkiina iyo waaxeedkayaga waxaayaha loo baahan yahay horta inaan marka hore laga sii wada hadlo marka aynu wada hadlaynana waxa weey laba dawladood ay wada hadlayaan waa inay wax ay kala qortaan waa ina wax la kala qeexo maaha caruur yar xaflad loogu yeerayo waxa weey laba dawladood oo maxaa ahayd laba qaran weeyaan laba qaran oo la matalayo oo meel wada imanaya waxa weeyaan anigu waxaan ogahay beesha caalamka waa loo sheegay waxa la yiri waxa imanaya wasiirkayga waxa imanaya wasiirkoodii oo maxaa ahayd dadna markii dambena ay noqotay agaasimo anu mid baan ogahay international community way nagu qoslayaan waxay nagu qoslayaan wasiir ba agaasimo hor fadhiisanaya macquul maaha it doesn't make sense marka inay marka horeba halkaasu ay fari ku godan tahay waa la iska arkaya waxay sheegtay in siyaasadda arrimaha dibadda Somaliland marka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa hadda aanay lahayn qorshe cad oo lagu gaarsiin karo Somaliland aqoonsi caalami ah maalintii aynu halkan shirka aynu ku qabanay ee ay dadka farabadan inoogu yimaadeen waa kii iqbaal iyo dadkii kaleba ay iyo ku marxaati fureen malihi anigu dadkii ajnabiga haba ku marxaati furay oo yiri 2010 ba ugu dambeysay Somaliland aqoonsigeeda raad wanaagsan ay qaato baana idhi ma wadani baa yiri ummadini Somaliland dan u lahaa ee daneynayay ba afkoodii ka soo baxay waxaana nasiib darrada inagu riday xukuumadda iska daba xigtay ee kulmiya waa nasiib darro sidoo kale waxay dhaliilo u jeedisay wasiirka arrimaha dibadda Somaliland oo ay ku eedeysay in aanu la imanin dariiqay Somaliland ku heli lahayd aqoonsi caalami ah waa khaso inay maanta xamar inagu tiraaho annaku mabaanu ogeyn mana u talagelin inaan meeshaas oo kale aanu nimaadno way nagu nasiib darro inaynu ku baryatanno oo maanta wasiirkeennii arrimaha dibadda uu afkiisa uu soo mariyo islaan riyal la joogta haday noo yeedho waanu tagaynaa uma tagayno adigu kaliya u tag baan ku leenahay faratoon wasiirka arrimaha dibadda Somaliland haday islaan yar oo riyal la joogta adiga ku yeedhay ku gacan aadiso adiga oo aana mansabkii maxay Somaliland aana huwanayn baad ku tagi doontaa laakiin magacayaga iyo sharaftayada dhulka kuma ridi doontid insha Allah najcada cunaya saab TV hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab
casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amase goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida